kulanti wacan wanaagsan saaxiibayaal meel kasta aad joogtaan maalin wanaagsan u diyaar garooba inaad daawataan wararkii ugu waaweynaa Soomaaliya caalamka intiisa kale qodobada wararka ugu waaweyn maanta waxaa ka mid ah madaxweyne farmaajo oo loo haysto laba maamul uu ka saaray liiska villa Soomaaliya waa maxay sababta xog ku saabsan qorshe Karan Axmed Madoobe oo ka bilowday Muqdisho iyo doorasho lagu diyaarinayo Muqdisho dowladda Soomaaliya iyo hogaamiyaasha mucaaradka oo la faray in wada hadal ay ka yeeshaan khilaafka labada dhinac ka jira beesha caalamkana farmaajo waxay ugu digeen qorshe halis ku ah 2021 uu damacsanaa lafta gareyna waxa uu ka carooday hadallada siyaasiyiinta mucaaradka weerar afkan waxa uu ku qaaday madaxweynayaashii hore war cusub oo ka soo kordhay odayaasha soo xulaya baarlamaanka galmudug iyo waqtiga la dooranayo madaxweynaha oo la shaaciyay iyo Ethiopia oo markii ugu horeysay hawada u diraysa qiyax gacmeed qodobadaas kuba kale ayaa saaxiibayaal qayb ka noqon doona wararkeena maanta warbixinta ugu horeysa ee warkeena maanta xog ku saabsan madaxweyne farmaajo waxa loo haystaa in laba maamul oo kamid ah maamul goboleedyada dalka in liiska villa Soomaaliya uu ka saaray waa maxay sababta arintaasi madasha xisbiyada qaran oo hogaaminaya madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa madaxweyne farmaajo waxay si kulul ugu eedeeyeen in uu xasilooni darro ka abuurayo labada maamul ee Jubbaland iyo waliba Puntland kuwaas oo loo arko in madaxweynaha Soomaaliya dagaal gaar ah kula jiro sida ay madashu ay sheegeen dowladda federaalka ayaa maalgelin iyo kacdoon ka dhana dowladahaasi waxa ay ka wadaan halkaasi waxa sidoo kale ay tilmaameen in ay burburinayaan galmudug iyo hirshabelle iyo koonfur galbeed uu adeegsanayo shakhsiyaad asaga saaxiib la sida ay sheegeen xubnaha madasha waxayna madashu ay sheegeen in madaxweynaha Soomaaliya markan uu soo jeestay ka taqalusta inuu ka taqaluso dhammaanba maamul goboleedyada dalka ka jira dhanka kalena xubnaha madasha waxa ay sheegeen in Soomaaliland qudheeda loo adeegsanayo dad qaybka dawladda Maxamed Siyaad Barre dambiye dagaal ka geystay madashu waxa ay sheegeen in xubnaha wada hadalka ama dhab u hadalka ee u dhaxeeya wada hadalka dawladda Soomaaliya iyo Soomaaliland xubnaha garwadeenka ka in lagu daro shakhsiyaad qaybka dawladii hore Maxamed Siyaad Barre kuwaas oo loo haysto in xasuuq dad ay ka geysteen deegaanada waqooyi warka ka soo baxay madasha xisbiyada qaran waxa lagu sheegay in burburinta heshiiska ay la galeen madaxweyne farmaajo 26 November kaasoo gogol xaar u ahaa kulamo kale loo balansanaa in madaxweynuhu la yeesho hogaamiyaasha madasha sida madaxweynayaashii hore Xasan Sheekh Shariif Sheekh Axmed xasaasha dhammaan waxay u muuqdaan kuwa markan daaqada ka sii baxaya dowladda farmaajo iyo waxa lagu eedeeyay inaysan dhaqan gelin dhammaan qodobadii lagu heshiiyay isla markaana bulshadu madaxweynuhu uusan u cadeenin natiijada kulankii dhexmaray labada madaxweyne iyo waliba heshiiska waxaana qalalaasa siyaasadeed markale u muuqanaya in markale ka dhex amuurmayo oo in markale ka dhex urtay dowladda federaalka iyo qaar kamid ah maamul goboleedyada dalka inkastoo ilaa hadda eedeyntan loo jeediyay villa Soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha Soomaaliya wali uusan ka bixin jawaab rasmi ah oo ku saabsan eedan iyo waliba waxa ka jira iyo sababaha oo ilaa hadda u burburiyay wada hadalkii labada dhinac dhanka kalena qodobada kalena waxa qayb ka qorshe ka dhan ah Axmed Madoobe ayaa ka bilowday magaalada Muqdisho iyadoo Muqdisho laga abaabulayo doorasho kismaayo ka dhacda dowladda Soomaaliya waliba mas'uuliyiinta degmooyinka gobolkaasi Godo iyo waliba Jubbooyinka ayaa magaalada Muqdisho waxay ka wadaan qorshe Karan Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo dhawaan loogu doortay magaalada Kismaayo Agosto bartamaheedii markaa inuu hogaamiyo Cismaan Nuur Xaaji gudoomiye ku-xigeenka gobolkaasi Godo dowladda Soomaaliya ayaa sheegay inay wadaan qorshe kale oo lagu qaban qaabil lahaa maamul cusub oo Jubbaland loo dhisayo waxa uu sheegay mas'uuliyiinta degmooyinka Godo iyo waliba Jubbada dhexe ay dhamaantood bay ku sugeen magaalada Muqdisho isla markaana la sugayo mas'uuliyiinta Jubbada hoose inay ku soo biiraan iyo waliba maamulka kale ee Kismaayo si loo xasiliyo maamul cusubna loo dhiso gudoomiye Cismaan Nuur Xaaji waxa uu sheegay in qorshaha Muqdisho la isku yimaanayo ay tahay sidii wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya iyo waliba mas'uuliyiinta kale ay kaga hadli lahaayeen qorshaha dhismaha maamulka Jubbaland cusub waxa uu sheegay in doorashada dhawaan ka dhacday Kismaayo ay ku soo baxay Axmed Madoobe ay ahayd mid sharci darro ah isla markaana ay rajeynayaan mid sharci ah oo xalaal ku dhisan in markale ay qabtaan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa qaadacday doorashadii Axmed Madoobe iyo waliba mid kale waxay dowladda Soomaaliya sheegtay in doorashadaas ay ahayd mid baalmarsan habraaca wasaaradda arrimaha gudaha dhanka kalena waxa soconaya dadaalo qaramada midoobe ay wado oo ku aadan sidii xal waara looga heli lahaa khilaafka u dhaxeeya dowladda iyo waliba maamulka Jubbaland waxaana Kismaayo toddobaadkan gaaray wafdi hogaaminaya ergeyga gaarka qaramada midoobe qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Iswaan asagoo la kulmay madaxda maamulka Jubbaland gaar ahaan madaxweynaha maamulkaasi Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe
arrimaha ugu muhiimsan oo kala hadlaya ayaa waxaa qayb ka ah xalinta khilaafkan iyo weliba sidii loo joojin lahaa labada dhinac khilaafka u dhexeeya dowladda Soomaaliya in uu aqbali lahayd natiijada doorashada Axmed Madoobe ee lagu doortay Kismaayo. xog ku saabsan beesha caalamka oo farmaajo ugu digtay qorshe halis ah u damacsanaa 2021 ugu dambeyn beesha caalamka waxay soo saareen mowqifkooda ugu dambeeyay ee doorashada iyo weliba nooca doorasho ee Soomaaliya ka dhici karta. Saaxiibada caalamka ee Soomaaliya waxay soo saareen qoraal ku saabsan doorashada Soomaaliya 2020-2021 ayagoo sheegay in muhiim ay tahay in doorashada ay noqoto mid wax ku ool ah oo ku dhacda waqtigii loogu talagalay. qoraalkan oo dad badan ay ku micneeyeen mid lagu amrayo dowladda Soomaaliya ee waxay saaxiibada caalamka ee Soomaaliya ku sheegeen in qasabeeta in la xaqiijiyo in wax muddo kordhin ah loo sameeyo baarlamaanka iyo xukuumadda. xubnaha saaxiibada caalamka ee Soomaaliya waxa ay ku soo bandhigeen qoraalkooda 12 qodob ay ku dalbanayaan in hanaanka doorasho ee Soomaaliya 2020-2021 waxay yiraahdeen si waafaqsan ballanqaadyadii ay sameeyeen dowladda federaalka dhammaan saamilayda siyaasadeed iyo saaxiibada waxay ku boorinayaan in hanaanka doorashada ee mustaqbalka ay noqoto mid loo wada dhan yahay. waa qodobka koowaad ee dhowrista dastuurka dalka. qodobka labaad xaqiijinta dhammaan doorashooyinka federaalka laguna qabto waqtigooda dhamaadka 2020 bilowga 2021 iyadoo aan wax muddo kordhin loo sameynin xukuumadda iyo weliba baarlamaanka. 3 xaqiijinta dhammaan bulshada Soomaaliyeed inay helaan matalaad cadaalad. 4 sinaan dadka Soomaaliyeed iyo fursada wakiilada matalaya si u doortaan doorasho qof cod ah dadka wakiilada u matalaya dowladda. 5 ku daro kaalinta xisbiyada siyaasadeed ee doorashada oo ina la xusay. 6 damaanad qaad haweenka inay helaan 30% baarlamaanka cusub. 7 xaqiijinta ka qaybgalka ugu ballaaran uguna macquulsan oo ay ku jiraan dadka gudaha ku barakacay. 8 haysashada taageerada dhammaan saamilayda siyaasadeed. 9 doorashada la qaban karo inay noqoto mid hufan oo nabad ay ku dhahan tahay soo jiidaysa taageerayaasha caalamka ay bixinaya dhaqaalaha. 9 natiijada ka dhalata doorashada ay noqoto mid ay u hoggaansamaan dhammaan dhinacyada. 11 iyo ilaalinta muddo xileedka guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka. waa 11 qodob ee saaxiibada caalamka ay soo saareen ama beesha caalamka markan ay ku cadaadinayeen dowladda federaalka Soomaaliya. saaxiibada caalamka waxay ugu baaqeen labada aqal ee baarlamaanka dalka in ay ka hor dhamaadka 2019 ay meel mariyaan sharciga doorashooyinka ee kana axsaabta. saaxiibada caalamka ee Soomaaliya waxa ay sheegay inay ka go'an tahay in dowladda Soomaaliya ay taageeraan dowlad wanaaga iyo waliba tallaabada hore loo qaaday oo ku saabsan in la hirgeliyo dhammaan qodobadii la soo sheegay. bayaanka ka soo baxay beesha caalamka ee si wada jira waxa uu soo saaray AMISOM, Canada, Denmark, Ethiopia, Midowga Yurub, Finland, Faransa, Germany, IGAD, Italia, Kenya, Norway, Sweden, Switzerland, UK, Mareykanka iyo qaramada Midoobay. waana wadamada ku boobay beesha caalamka oo markan dowladda Soomaaliya ku cadaadinaya arinta la xiriirta doorashada. dhanka kale qodobada kale wararkana ka haray waxa qayb ka xog ku saabsan hogaamiyaasha mucaaradka oo la faray in markan wada hadal dhab ay ka yeeshaan lala xaliyo khilaafka ka dhex jira. waxa wala xoogga laga muujinayay xiisada siyaasadeed ee Soomaaliya hareysa ee sanadkan waxaana loogu baaqay dowladda federaalka saamilayda siyaasadeed in ay amuurooda ku dhameeyaan wada hadal iyo waliba isku qanacsanaan iyo tirada shacabka oo door weyn ka qaata. sidoo kale saamilayda siyaasadeed waxa la faray inay ka heshiyaan hanaanka doorasho 2020 lagana fogaado wax walba oo keeni kara xiisada siyaasadeed iyo qalqal amni. dowladda federaalka Soomaaliya waxa looga baaqay in doorashooyinkaas waqtigooda lagu qabto si ay u soo baxdo dowlad sharci ah loo xaqiijiyo hanaanka dimuqraadiyadeed ee dalka. shir ka dhacay dalka Djibouti ayaa looga hadlay isbedelka geeska Afrika ayaa waxa dowladda hogaamiye madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay u sheegay in ay dib u soo nooleynayaan wada hadaladii ay la lahayn Soomaaliland yoolkooda ku saabsan isqancinta iyo waliba xubnaha saamilayda siyaasadeed ee dalka ka jira oo wada hadal la yeeshay iyo isku tanaasul in lagu dhameyn doono sida dowladdu ay ka sheegtay shirkii ka dhacay Djibouti. maamul goboleedyada dalka iyo waliba dowladda federaalka ayaa waxa loogu baaqay inay heshiyaan kala aragti duwanaanshaha la xaliyo si loo helo wado geedi socodka iyo waliba wada hadalka dib u heshiisiinta si loo dhameystiro.
xasaasha intaan warbixinta ugu dambeysa warkeena aan u gudbin aan eego war cusub oo kasoo kordha xaaladda galmudug iyo dhismaha maamulkaas iyo weliba doorashada la cilaamiyey guddiga farsamada iyo weliba maamul dhisida ayaa xareeyay in ka badan odayaashii soo xili lahaa xubnaha xildhibaanada baarlamaanka cusub ee galmudug magaalada dhuusamareeb caasimada galmudug waxaa lagu qabtay munaasabad lagu soo dhaweynayo qorshaha saxiixiyaasha galmudug islamarkaana waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya cabdi maxamed sabriye 24 ilaa 30 Diseembar waxaa la filayaa in odayaasha ay soo bandhigaan liiska xildhibaanada cusub waxaana fadhiga ugu horeeya ee baarlamaanka cusub oo yeelan doona 31 Diseembar oo ah maalinta ugu dambeysa ee dhamaadka sanadkan baarlamaanka labaad ee galmudug wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya ayaa odayaasha saxiixaya galmudug waxa uu ugu digay in muran aysan gelin 20 xildhibaan ee baarlamaanka laga sii ahlu sunna wasiir sabri waxa uu dalbaday in ahlu sunna la siiyo saamigeeda aan wax muran aan laga gelin maadaama ahlu sunna wada hadal iyo heshiis ay ku heshay 20 xildhibaan ugu dambeyn Ethiopia ayaa markii ugu horeysay waxay hawada u dirtay dayax gacmeed dowladda Ethiopia ayaa ku guuleystay in hawada sare ay u dirto dayax gacmeed markii ugu horeysay taariikhda dayax gacmeedkan oo laga tuuray gudaha wadankaas China ayaa magaalada caasimadda Addis Ababa waxaa lagu qabtay xaflad ay mas'uuliyiinta dowladda Ethiopia iyo kuba kalaba ay toos ugu daawanayeen xilliga la diriyay dayax gacmeedkan xafladan dadka ay ka daawanayeen ayaa waxa ka soo qayb galay ra'iisul wadankaasi Ethiopia Abiy Ahmed iyo waliba madaxweynaha wadankaasi Dema Mokin kala yiraahdo iyo waliba hogaamiyaal hore oo ku jira ra'iisul hore wadanka Ethiopia Haile Mariam Desalegn iyo wasiir ka tirsan xukuumadda dayax gacmeedkan oo laga tuuray meel ka fog caasimadda Beijing ee dalka Shiinaha ayaa waxa dowladda Ethiopia sheegtay in ujeedka ugu weyn ay tahay ama ay ka leedahay in la socdo cimilada deegaanka iyo in gacanta ay ka geysato horumarka beeraha macdanta horumarka dhanka magaalooyinka ugu waaweyn ee Ethiopia oo la ogaan doono maalgelintooda waxay sidoo kale xukuumadda Addis Ababa sheegtay in dayax gacmeedkan lagu tuuri doono la diray ay kaga gol leeyihiin in Ethiopia oo dhanba la ogaado xaaladeeda warbixinta ugu dambeysay wararkii maanta aad ka daawanaysan channelka warkan kan xiga daawadayaal intaan ku kulmi doono nabadgelyo